dadku ay gelikii dambe ay u soo baxayaan waxaad arkaysaan dadweynaha kala duwan oo suuqa soo camiray gaadiidka oo cagtiisu ay taagan tahay ilaa haatan oo aan dhaqdhaqaaqiisu aanu fara badnayn marka laga reebo gaadiidka kooban ee sita nambarka ama blaydka gaadhiga loogu talagalay ee guddida doorashooyinka qaranka gabagabada goobaha ayaa waxay yihiin qaar dadku ay si teelteel ah ay u imanayaan iyagoo dadkuna meheradaha kala duwan ee suuqa caasimadda ay fadhiisteen oo ay inta badan ay iska taagan yihiin waxay ka sheekaysanayaan oo ay dad badan isweydiinayaan sidii loo codeeyey qaabkii ay codayntu u dhacday si nabadgelyo ah u dhacday sidoo kalena ciidamada ammaanka oo iyaga laftu dariiqa agtayda maraya oo si fiican oo nabadgelyo oo wanaagsan ay u ilaaliyeen ammaanka guud ee caasimadda Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland haddaba dadweynaha bal codkooda dhiibtay marka laga imaado aynu eegno goobuhu sida ay teelteelka u yihiin iyo sida ay u shaqaynayaan ilaa iyo hadda maadaama ay salaadii maghrib ay ka harsan tahay wax ka yar 15 daqiiqo oo eedaankii uu dhow yahay taasina ay tahay goobaha waqtiga loogu talagalay in xidhmaan isla markaasina haddii kuyuuga ay ku jiraan dadku aanay ka xidhmaynin laakiin ay tahay oo keliya haddii aanay dadku kuyuuga ku jirin in ay ka xidhmayso bal goobaha ayaan waraysanaynaa anigii soo raac السلام عليكم. عيدرس. آمين آمين. الحمد لله يسلمك كده. اسكور مسيتي ورا. بعنتين. الحمد لله ما شاء الله شرايك. أوه. يسوس. بص. بعنتين الحمد لله. قوتي نيجي. كورة لسه. السلام عليكم. مستر محمد علي. عنتي الحمد لله ورا ما شاء الله سيتي وداشين الحمد لله شغفي عمل غلطين قرنكيني ما شقيسين الحمد لله رب العالمين مو في عنتي قمت مد ما تبع امسد قلبنا مي صوف كويس ان شاء الله لحنا قلبنا مو ايدي صوف كويس oo ay ka dhamaanaysaa dhamaanteed way imika kuyuga ma cid baa ku jirta ma cid baa codaynaysa mise dad baa sugaysaa dad baan sugnaa wali kuyuga waa cid la imika way marka ugu dambeeyo qofna ma fadhiyo laakiin time-kan buuxsanna way marka dadkii imika aad u dhamaadeen marka ilaa 6 gaariso wixii imanay oo sugnaa shaqo waxaad ii sheegtaa tirada loogu talagalay goobta codaynta ee bugaagta iyo waraaqaha idinku qoran intee lag baahayd 300 boqol ka tambay ayay goobtan oo kaliya waana goobo fara badan ilaa dhowr iyo 10 gaari ayaa xagga yaala marka dadkii ma wada codeeyeen ma barba baaqday sidee noqotay adoo raqaymka wax yar baan ugu harsan dadka badankooda way codeeyeen dadkii intooda badan codeeyeen si fiican bay codeeyeen oo ay u yimaadeen sax wax culays ma idinku dhacay ama wax dhileeya ama wax gogoos ma wallahi koobteeda wax culays nagu dhicin dhamaantood laakiin waxa dhacay xagga dadkan codeynaya ayaa wax la yar waayay magacyadooda taasina koobaha dhan bay ka sanaayeen way marka taasoo dib dadweynaha ku yar keentay way laakiin xaqan qoobteedu aad waqtiga culays ku keenay laakiin de maadaama waqtiga culays ku keentay baariya meeshii koobta laga waayay magaciisa way marka taasoo kale maxaa keenayay bay kula tahay taasi waa cilad xagga farsamada komishanka oo qoraalada komishanku qaabkay u qoreen absolutely oo aan ahayn dhinaca dadka iyo dhinaca maaragtay goobaha iyo mas'uuliyiinta komishanka la shaqeynaysa aan ahayn way ka warrama sidoo ma culays baa idinku dhacay sidee maanta ahayd doorasho hore ma laga shaqayseen balse hore waan ku shaqeynay 17kii ilaa tii daahiriyaal hortoon ka shaqeynay anigu waxa baan u arkaa doorashadan tii igu nafisanaydeenaysi tii kugu fududay caadiyan way wax culays ma dareemi hablahan fursadiinaya assalaamu calaykum walaalo السلام عليكم. magaca walaal Ijme. dadka ka waran doorashada halkeed aad u joogtay komishanka mise xisbiyada Ma xisbiyadan hay. waa xisbigee baad ahayd talwadaag way marka waxaad eeganaysaa waraaqahaaga sad u kormeeraysay codkaad helaysaa waxaan eeganayay waraaqahayga inta qof ay codeynaysa ayaan la socday way wax ka khaldamay ma jiraan ma wax iga khaldamay ma jiraan wax dhibana ma arkeen way goobtana sidee uga socotay doorashadu والله سيفي عم بيجو سعودي قوبت هذا سيفي عم بيجو دعوة السلام عليكم ولاله ما تصدقي مقعد ولاله وداد نسمع ولا هرودا هالكذا سعودية ولا سعودية هرسات والرسياسات كورسات كورن نورس كورسات والله ما شاء الله ما عد كاجي ما ترسلتي ولي ما ترسل لكن صار أركب ما شاء الله
صندوقك كورن والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيجار ما هالك أنت متساكا شنتي بركس وحنا مالك يمد ما أوركاكو كاني مساعد جاي سوي ما أنا جا يمد أنا يمدها هذا هالك أنا هالك يمد إيجار ما تلاقيها بين هالك كتكتور عدك كتير والله إلا أنت صندوق ده الله ترينا عيا وان شوقيا كمش بقول ورقة قاعدنا يكون مش كقادم ولا شوقيا مركا سيديباد مريسا نظام نوعية وين قرال كات قادنا يسوي إن أوركاك عدك أنت على جوهلك waraaqaa jira commission noo keenayo oo wali anaga loo dhiibin oo gudoomiyaha ayaa jira waraaqaasan la siinayaa wixii cod ururkaygu helay iyo ururada kale heleen oo dhanba waraaqaasan ku qoranayna marka waad saxiixaysan oo saxiixayna anigu ma saxiixna gudoomiyaha noo saxiixaya gudoomiyaha goobta anaguna waad ku raacaysan anaguna warqadan qaadanayna waraaqaha codku idin ku dhacay sidee la idin tusayaa qofka idin codeeyay urur ahaan urur kasta oo codeeyay ama xisbi kasta oo codeeyay nalaam salaam maxamed qofka aan garanin calaamadsaneyn amba aan garanin gudoomiyaha goobta ayuu wakiilanaya oo deetana uu codeynaya annagana uu tusaya kadib markuu tusoon la eegin annaguna qofkii uu xornaya matala nimanka kulmiyaan codeynaya musabixi iyo horseed uu calaamadinaya gudoomiyaha annagana uu tusaya kadib saasaan ku arkaynaa marka inuu gudoomiyaha inta qofkii si sax ah ugu codeeyay welina wax caqabad iyo wax dhibaato oo diidna maana arag aad iyo aad baa maasantay aad iyo aad baa maasantay assalaamu calaykum calaykum assalaam halmadi ka dhac ma commission ka tiinidi commission way marka waxa tii shaqaalihi gudida doorashooyinka way goormaad halkan timaadeen saaka ilaa xalay waan joognaa anagu ilaa xalay imsadii baad timaadeen xalay ilaa xalay koodii meel hasan imaanay koodii habeenimo way sidee baad marka halkan u joogteen inta ilaa xilligaas oo aad wax u diyaariseen oo shaqada u diyaariseen ilaa saaka aad u joogteen haddana habeennimadkii dambe idinku soo galayo bal dareenkaaga yar cabbi wallaahi dawaa daala dunun ولا دتك ما لو دالي مو يعني هاوش هو دالو بدنت هاوش مو سدا كلي لكن دوا قرن كلا دول قادنا ما هو قرن كاوش قرن كلا هيا way cuntadiina adeegiina sida u heliseen waa suuq oo dhan u xidhnaa bal waxa iga waran meherada qaar ba furnaa laakiin suuq wadaxna laakiin meherada qaar ba furnaa oo inta laga soo yeelay ka soo qaadanay cuntada aad ka soo qaadanaysaa guud ahaan halkan ma dad badan baad ku joogtaan dhowr waxa yaala dhowr goob doorashooyin fara badan baa halkan yaala marka tirada shaqaalaha commission ku joogteen may badan yihiin adoo waxa lagu talagalay cala qol waxa lagu talagalay 4 commission iyo 10 muqaaribinta wakiilada xisbiyada ay lagu talagalay marka 14 kaas ku joogtaan 14 kaas ku joogtaan aad iyo aad baad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin dawadayaal saad wada arkaysaan halkan goobtani way dhammaatay ayr khadar ayr goobtan way dhammaatay oo cid kuyuga ku jirtaa ma jirto dadku way wada codeeyeen dadka dhiman waxaa la sugayaa waqtiga loogu talagalay in goobta la xidho haddii ay ku iman waayaanna goobta waa la xidhayaa dadka intii badan ee waraaqaha ku qornayd way codeeyeen sida uu noo sheegay gudoomiyaha goobtan doorashada maadaama waraaqaliis ay haystaan oo goobta loogu talagalay 400 qof inay ka codeeyaan waxay garan karaan tirada timid iyo tirada ka maqnaan karta saacadda markay gaadho marka 350 qof ayaa ku qornaa goobtan oo kale 350 qof intii badnayd codkooda way dhiibteen taasina waxay ka dhigantay dadka Soomaaliland ee iskugu soo baxay doorashada codbixinta oo loogu talagalay inay yihiin 1,200,000 oo ka kala codeynaya 6 gobol ee Soomaaliland in ay intooda badan ay goobaha codbixinta ay u soo baxeen gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo saaka si weyn loogu soo baxay goobaha qaarna ay codbixintu inay dadku codkooda dhiibtaan ay goor horeba dhamaatay haddii aan dib idin ku celiyo Soomaaliland waa doorashadii afraad ee dadku ay codkooda ku soo dooranayaan madaxweyne Soomaaliland 2003 bay ka soo bilaabantay 14 bishii March oo ahayd in la doortay madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo sanduuqa codbixinta waqtigaasi loogu riday 2010 bishii June waxa la doortay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagana sanduuqa codbixinta ay dadku codkooda ay go'aan kaga gaadheen 2017 madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayay dadku doorteen oo isagana 13 bishii November loo doortay inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ay dadku codkooda ay ku soo doortaan saasi darteed imikana waxay noqonaysaa madaxweynihii afraad
ee ay dadku codkooda ay ku soo dooran doonaan yuu noqon doonaa madaxweyne biixi oo talada sii haya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo mucaaradka ugu weyn hogaaminaya iyo isbedel doonka oo isaguna kula loolmaya talada dalka madaxweyne biixi faysal cali waraabe oo isaguna xisbiga mucaaradka u cid hogaaminaya doorashadan afartaa goor la soo kala codeeyey waxaa Soomaaliland guud ahaan ka codeynaya gobolka Maroodi Jeex oo ah 497 oo cod ay yaalaan gobolkan oo ah ilaa 5 milyan cod sidoo kalena gobolka Togdheer oo yaalaan 236 oo cod oo noqonaysa rubuc milyan cod isla markaasina dadkaasi ay maanta codkooda iyagana u dareereen gobolka Awdal waxa yaala 181 oo cod isla markaasina dadkaasi ay saaka codkooda dhiibteen goobaha codbixintuna ay haatan ay soo xidhmayaan oo ay gabagaba ku dhow yihiin waxa kale oo yaala gobolka Saaxil caasimadiisu tahay magaalada Berbera 290 oo cod isla markaasina ka kooban labada degmo ee Sheekh iyo Berbera gobolka Sanaag waxa yaalay isagana 119 oo cod oo ay dadku iyagana saaka ay codkooda dhiibteen oo halkaas u dareereen waxa kale oo yaala gobolka Sool gaar ahaan degmada Caynabo iyo deegaanka Xudun oo ka tirsan Bohol cod gaaraya ilaa 98 oo cod isla markaasina dadka codkooda dhiibanaya yihiin ilaa 40 oo cod doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland waa doorashadii ugu horeysay ee dadka reer Soomaaliland ay isku diiwaan galiyaan milyan iyo 200 oo cod isla markaasina dadkii soo baxayay ololaha doorashada ee u soo baxayay asxaabta qaranka iyo ururada siyaasadda ayaa iyaguna waxay ahaayeen dad badan oo intooda badan aan kaararka qaadan ama dhalinyaro badan oo aan kaararka haysan iyadoo habka diiwaan gelinta ee dadku waqtigaasi aanay jirin xamaasadda haatan ka jirta Soomaaliland ee ah inay dadku u codeeyaan doorashada madaxtinimada doorashada ururada siyaasadda iyo doorashada xisbiyada haddaba ururada siyaasadda ayaa doorashadani waxa ay ku lamaan yihiin doorashada madaxtooyada waana doorashadii ugu horeysay ee madaxtooyo iyo ururada siyaasaddu ay isku lamaanaadaan tan oo ka dhigan in ay tahay doorasho taariikhiya oo markii labaad ay tahay in doorasho laba goor la wada qabto isku sidkan sanadkii 2021kii doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka iyo sanadkan 2024 oo noqonaysa doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda taariikhda Soomaaliland ay qorayso ayaa waxa ay tahay in sanadkii 1997kii ay ugu dambeysay inay dadka reer Soomaaliland amaba odayaasha dhaqanku intay fadhiistaan ay madaxweyne doortaan tan iyo sanadkaasi wixii ka dambeeyay dadka reer Soomaaliland ee haatan iga dambeeya dadka codkooda dhiibanaya dadka ku jira goobaha sanaadiiqda ee imika codka dhiibanaya waxay codkooda ku soo dooranayeen awoodooda shacab awoodooda khaaska ah dareenkooda cidda ay doonayaan inay sanad hogaamiso Soomaaliland waxa ay ku noolaanaysay sanadihii ugu dambeeyay hanaanka doorashooyinka ee codbixinta haddii ay noqoto golayaasha deegaanka golayaasha baarlamaanka madaxtooyada dhammaantoodba intaasi dadweynaha reer Soomaaliland waxay codkooda u dhiibanayeen si ay iyagu doonayaan qofka iyagu doonayaanna way soo dooranayeen tanina waxay noqonaysaa taariikh gaar ah oo ay leedahay Soomaaliland oo ah inay kaga duwantay guud ahaanba geeska Afrika oo ay tahay wadan aan la aqoonsan haddana dadaal badan ugu jira inay awoodda dadku ay leeyihiin madaxweynaha ay doonayaan keenaan madaxweynaha ay doonayaanna ay talada ka qaadaan taasi oo ah awoodda ugu badan ee shacabka Soomaaliland ay leeyihiin Soomaaliland waxay ka gooday Soomaaliya sanadkii 1991kii 18 bishii May taasina waxa ay ka dhigan tahay taariikhda cusub ee Soomaaliland ay qorayso iyo dadka reer Soomaaliland aqoonsiga ay ka raadinayaan dunida dhalinyar badan oo mustaqbal leh dhalinyar badan oo wax bartay dhalinyar badan oo hiigsiga dalkooda iyo dadkooda leh oo halkan jooga iyo qaar maqan ayaa dareenkoodu waxa uu yahay inay taariikhdaasi Soomaaliland ay qortay ay sii wadaan oo ay sii hiigsadaan in ay iyagu noqdaan madaxda berita haddii Allah uu tiraahdo dadweynaha halkan iskugu yimid ayaa fursad siin doona dhowr qof bal inay iyagu laftoodu ay dareenkooda aan halkan ay ku muujiyaan walaal soo dhawow waan dhawaay walaal waan ku dhawaay MMTV maanta ma codaysay aad iyo aad halkaad ka codaysay waxaan ka coday Maxamed Axmed Cali codkaagu waa dhiibatay kii madaxtinimada iyo kii ururada siyaasadda labadaba waan dhiibtay isbedeltoonkana waan coday aad baad mahadsantahay maad codaysay maanta waxa kii aan u jirnay waa marka maad codayn maanta ma coday laakiin waxaan eegaynay basay tahay buuqan lagu wala waxana dhacay midba dhacay waddanku waa hagaagsan yahay marka waxaan leenahay haddii ay ka dhigo khayr been ugu dhad buuqeedu wayna dhaafa baashu gudaheedu wayna saameysay buuqeedu bay nagu batay alxamdulillah kii soo baxay insha Allah khayr u dacay insha Allah ma codaysay maanta MMTV aad iyo aad baan ku salaamayaa darankay waxa weeye sida maad codaysay maanta waan coday ha halkaad ka codaysay waxa bartaan ka coday way waa sidii shantii subaxnimo soo kacay ayaan wali u soo taaganay waa imika waa salaadii maghrib baa dhow salaadii maghrib ay imika dhow goobihi baa xidhmaya goobihi imika ay xidhmayaan si nabadgelyo ah bay u dhamaatay
waxa weeye madaxweynahaygii aanu codeeyey saaka aad iyo aad baan u faraxsanay waad mahadsan tahay go'aankaaga aad u gaar ku yahay go'aankaaga aad u gaar ku yahay aad iyo aad baad mahadsan tahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa waad mahadsan tahay ka waran codkaagii ma dhiibatay waan dhiibtay waay saaka 10kii barkii waan dhiibtay ayaad dhiibatay goobteed ka dhiibatay halkan madaxafka masxafka qaranka ayaad ka dhiibatay oo mahadsan tahay codkaaga ma dhiibatay saaka hawla si fiican baan u dhiibtay goobteed ka dhiibatay qaybta dhalinta ka dhiibtay dhalintaad ka dhiibatay ma sha Allah waad mahadsan tahay walaal salaamu calaykum calaykum salaam haye xagaad ka timid geed goblaad ka timid maad codaysay saaka haa saddexdii subaxnimo soo kalahay saddexdii subaxnimo ilaa saddexdii subaxnimo aan taagnaa aan ku jirnay maxaaye codkaaga kor yar kayuuga halkaad ka codaysay gacan libaax baad ka codaysay marka codkii madaxtinimada ee madaxtooyadana waa dhiibatay madaxweynaha kii ururada siyaasadana waa dhiibatay labadaba waa dhiibatay soo ma ka waran ma doorashadii kuugu horreysay codaysaa inan dhalinyaraad u eeg tahay may 2017 oo codaynay musabixi maantana cabdiraxmaan ciro ayaad u codaysay iyo ka aad mahadsantahay codadkiinu idinkay khaasidiin yihiin laakiin inaad codayseen yaan codayninoo maanta aan kaadh haysan ayaan doonaya inaan dareenkiisa weydiiyo haddii uu jiro ama kaadhku ka lumay amaba intuu isdiiwaangeliye aan kaadh qaadan marka yaa ka mid a dhalinyarta aad maad codaynin waay dhalinyardii ololaha u soo baxaysay ma ka mid ahayd ololihii baad soo baxday oo khayriyada iyo beerta xorriyadda imanayay marka maanta maxaad u codayn weydeen kaadhkii baa iga lumay aniga kaadhkii baa kaa lumay markaa laguma ogola inaad tagto meesha meel fogna way ahayd oo dee taraagaasan diidanaa magarasa way halkeed ku qornayd ina yar baatay dhalinyare 29 ku qornaa 29 ku qornayd markaa halkaasaad ka qaadatay miya marka hore kaadhkaaga kaadhkina iga lumay intee ku jirtay mise kilomitir intay isku jiraan halkan iyo 29 way intee leg adiga tagay goor intaad ku qiyaasaysaa dee anugu kilomitirkaa isma fiicnin magarasa way aad baad mahadsantahay ma codaysay maanta bismillahi raxmaani raxiim waan coday way goobtay wad ka codaysay waxaan ka iskuulka waxaan ka coday Axmed Guri baad ka codaysay Axmed Guri waan ka coday madaxtooyadii iyo ururada siyaasadda labadaba waa dhiibatay aad baad mahadsantahay ma codaysay waa codaysay saddex habeen mar soo kacay soo bixisaan codkayga u dhiibto waxaana ka coday suuqa waaheen ururadii madaxtooyaduna coday labadaba waad codaysay way aduna waad codaysay way dhalinyar badan baa la socotay ololaha oo aan kaadhar qaadan oo qurxinaysay ololaha marka dhalinyartii ma kamad mid hayn miya kaadh wada haysatay waan haysto waan codeeyay ilaa waxaan la codeeyay Muuse Makraas way goobteed ka codaysay waxaan ka codeeyay fooqa Xaaji Yuusuf waxaan leeyahay markaas beldel doonkii baan la codeeyo ninkii koob buu iska qaato koobkiisa waa goona maxba male waa dareenkiina gaarka taas aad oo maasantiin السلام عليكم salaadii maqrib baa la eedaamay salaada maqrib hadii la eedaamo goobaha codbixinta guud ahaanba Soomaaliland way soo xidhmayaan ilaa iyo marka laga reebo goobaha kuyuuga la taagan yahay oo ilaa kuyuugu dhamaado aan xidhmaynin laakiin goobaha kuyuuga laga maqan yahay sida gudida doorashooyinku sheegeen waxay noqon doonaan goobo xidhmay oo waqtigoodii u dhamaaday goobo badan ayaa dadku codka dhiibteen oo waqti hore aanay kuyuuba jirin isla markaasina aanay dadku imanaynin sidoo kalena la sugayo uun inta waqtiga rasmiga uu dhacayo sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah goobaha mas'uuliyiintoodu ama gudoomiyaha goobaha kala duwan ee ay dadku ka codeynayeen salaamu calaykum walaal soo dhawow calaykum salaam ma codaysay maanta waan codeeyay walaal haye kaarkaagii waad qaadato goormaad codaysay misadii mar dhaweyd baan codeeyay shantii galab codaysay waayahay ka waran jawigaaga maxaad dareenkaagu sidii alxamdulilah tabaarakallah dalkaygoo nabadaan ka codeeyey musharaxii aan wataan u codeeyey alxamdulilah tabaarakallah guul iyo gobonimo imsadii baad soo kacday saakee aad doonaysay in shaqadan u diyaar garowdo waxaan soo kacay labadii maanta maba soo kicin salaadii hore labadii doornimaad soo kacday markaa kuyuubaad gashay mise maad gelin mee kuyuugu yaraa waan galay laakiin marka adu waxaad ahayd dadka farsamada fahmaya marka kuyuuga inta hore dhaafto xagga dambe ka imaado haa walaal aad baad mahadsantahay walaalo soo dhawow magacaa dhaweey walaal suur maxamed jaamac walaal way suure walaalo maanta ma codaysay oo kaarkaagii ma ku codaysay imka socodey imka soo codaysay imsadii waxaan codeeyay labadii galabnaad codaysay waa yahay duurnimo way maad soo kaliin basaaka xalayna maad laakiin xalay ina codeeyo waa rabee soo kaco aad soo kaco marka doorashadii madaxtooyadana waa dhiibatay
doorashadii ururada siyaasadana waa dhiibatay labadiiba waan dhiibtay labadiiba waa dhiibtay ma faraxsan tahay haa waan fadhiyo tii ugu horeysay weeyaan waan ku faraxsanahay inaan codeeyo ma doorashadii ugu horeysay codeysaa marka ma kaarkaanad qaadan ma doorashadaad iska diidi jirtay ma xiisaanay ku haynin laakiin xiisa ii haysaa inta bal dadka intaa ugu cali tii hore ma garanay laakiin tan ma garanay wax isbedel keenay ee san xiisa loogu qabo waa xiisa tan u qabtay tan xiisa u qabay marka ma ogin in doorasho inay dhacayso inaan dhacayn ba isku keemid bay tan laakiin xiisa gaar ii haysaa way marka xiisihii ma ka nafistay marka codeysa waan cunay maanta dhan waan qaylinaynan tan baan ku lahayn baxna xilli hore saaka shantiina soo baxay rabay laakiin waxaan soo baxay labadii doornimo aad baad mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. من عودي سمانتا؟ ها ساكون عودي الحمد لله نبض بنك عودي. قوبتي بدك عودي. شيخ مدر بنك عودي. شيخ مدر بدك عودي. ورودي السياسة دي مدحتوي ده. يا مدحتوي الله بدر بنك عودينا. هذا ما سنتاي. والله لساكن ما عودي. وين عودي ها؟ هالكات عودي. شيخ مدر. شيخ مدر بدك عودي. صاحبتي اللي بدينه. ترى كي شيخ مدر وانا. هذا ما سنتي. يعني ما نسوق عن لسان عودي. إلى ديبتان عدكين. مركب ما كفر حسيتينا ديبتين. بقول كيف بقول. هذا ما سنتي. daawadayaal adinkoo mahadsan salaadii maqribay gaadhay goobihiina inta badan way soo xidhmayaan wakhtigiina waa dhammaaday dadweynihiina waa kuwa magaalada hargeysa qof kastaa goob ayuu iska joogaa waa la iska sheekaysanayaa dareenkooday muujinayaan danahooday raacayaan baabuur badani ma jirto dareenkaasi halkan yaalla ee somalilan ay dadku ku codaynayaan ay codkooda ku dhiibanayaan ayaa waxa uu yahay mid taariikhiya oo aad ugu muhiima dadka shacabka reer Somaliland dareenkooda muujintooda fahamkooda iyo inay u bisil yihiin hanaan nabadgelyo ayna ku codeeyaan oo ay nabadgelyo ay dadku isugu soo baxeen nabad ku codee 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 Somaliland 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 هذا ما سنتين هذا ما سنتين هذا ما سنتين هذا ما سنتين daawadayaal doorashadu waxay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah oo nabadgelyo ay ku soo dhamaatay dadka reer Somaliland ay ku faraxsan yihiin inay codkooda dhiibteen si nabadgelyo ay ku dhamaatay wax fadqaladii aanay ka dhicin sidoo kalena ay dad 1 milyan oo ku dhow ay codka ay u soo dareereen oo ay cod bixinta dhiibteen inkastoo aan ku ogaan doono guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland waxaan sugi doonaa go'aanka ay soo gaaraan iyo goobuhu siday u soo xidhmaan iyo warbixinta ay ka bixiyaan ciidamada ammaanka iyo guddiga doorashooyinku doorashadu habka ay u dhacday sida ay ahayd waxa yimid haddii dib u dhac yimid iyo haddii ay dadku codkooda si weyn ay ugu soo baxeenba dadka reer Somaliland maanta waa maalin aad iyo aad ugu qiimo badan ay aad iyo aad u faraxsan yihiin dareenkoodu aad iyo aad u qiimo badan iyo u kacsan yahay ugu raaxaysanayaan hanaankooda dimuqraadiyadda iyo codbixinta iyo inay nabadgelyo ay ku codeeyaan iyadoo meesha ay ka baxday caadifadii ololaha ee dadku maaragtay ay garoomada iyo beerta xorriyadda ay la imanayeen intaasi oo dhan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idiin mahadnaqayaa idinkana Somaliland guul Somaliland guul Somaliland guul Somaliland guul Somaliland guul Somaliland guul Somaliland guul